wararka naga soo gaaraya gobolka bari gaar ahaan Buuraleyda Calmiskaad ayaa waxay ku waramayaan in saacadii la soo dhaafay ciidamada difaaca maamul goboleedka Puntland ay howlgalla ka dhanaa maleeshiyada argagixisada ee Daacish ay ka sameeyeen halka loo yaqaan Buuraha Miraale ee gobolka bari halkaas oo ay difaaci ugu weynaa ee maleeshiyadka argagixisada ee Daacish ay ku lahaayeen waxaana ciidanka difaaca maamul goboleedka Puntland uu suurta gashay in halkaas ay galabta la wareegaan ciidanka ayaa la wareegay dhufaysyadii ugu waaweynaa ee ururka Daacish ay ku lahaayeen Buuraha Miraale ee gobolka bari ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka Khaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hada dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama waa nambarka ku muuqda saldhigyada cusub ay la wareegeen ciidanka difaaca maamul goboleedka Puntland ayaa waxay ka soo saareen kaydad hub ah sidoo kale agabyo caafimaad iyo baabuur isku jirta mootooyin sidoo kale iska rogayaal kuwaas oo maleeshiyada Daacish ay ku aaseen halkaasi marka ayaa intaas ku darayeen labada dhinac u dhaxmaray dagaal aad u kooban ciidanka difaaca maamul goboleedka Puntland ayaa halkaasi ku digay laba ajaanib ah oo ka tirsanaa maleeshiyada Daacish kadib dagaal kooban oo dhaxmaray labada dhinac intaas kadib ciidanka ayaa bilaabay faagista iyo soo saarista agabyadan kala duwan ee maleeshiyada Daacish ay ku aaseen halkaasi saldhigga la qabsaday ayaa ah saldhigga ugu weyn ee maleeshiyada argagixisada Daacish ay ku lahaayeen Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka bari saraakiisha hogaaminaysa ciidanka difaaca maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka maleeshiyada Daacish ilaa inta laga soo afjarayo maleeshiyada ururka Daacish kuwaas oo iminka meel kooban kaga haray Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka bari